midda maanta maxay salka ku haysaa midda maanta laba aragtiyood ayaa xoog u socda aragtidaas tii kacaanka u ekayd oo liis xiran iyo hal ama xudur joog ama xamar joog hal meelaa lagu wada ridayaa oo constituency-ga uu yahay single aad baan beryahan u maqlaynay midda dowladdu ay riixayso oo aniga xogta saan ku maqlaayo dadka barnaamijkaas diyaariyay dad ka mid a waa kaadiriintii kacaankii barakaysnaa waxaa kaloo iyadana ku jirta dowladdu inay leedahay waxaan furanayaa xisbi weyn oo weyn kaas weyn waxaan u qaatay kii xisbiga madaxa kacaanka soomaalida oo kaleeto marka kaas waa mid kale isna jirta oo dad baarlamaan ku jira ay promote garaynayaan oo rabaan inay xeer ka dhigaan dabcan xeer doorasho inta aan la samayn dowladaha dimuqraadiga iyo dowlad waxaa u horeysa in dadku dastuur yeesho horta dastuur lagu heshiis yahay marka dastuurka referendum loo qaado waxaa umaleynaa dowladdii soomaaliyeed markay doorashada gasho waa markii dastuurkii koowaad u dhawaaday 62 miyaan 63 62 marka dastuur dhammaystiran la yeesho 61 miyaa 61 intaas waa intii aan dhalno waa idinka igu daraay dastuur in la yeesho in nidaam doorasho oo dastuurkaas ku salaysan la helo in nidaam xisbiyeed oo isagana qeexan la helo marka intaa la helo waxaa imaanaya doorasho aan la isku khilaafsanayn siday tahay oo aasaas dastuuriya leh marka baarlamaanka hadda waxaan maqlayaa sabtida soo socotay waxbaa loo cadeynayaa laakiin waxaan la yaabay sidee xeer loogu codeyn karaa aan habraaca nidaamka sharciga ah marin iyadoon dastuurkii lagu heshiin iyadoo xeerkii dastuurka waxa weeye waa heshiis bulsho oo dadka matalaada bulshada ule ay ka heshiiyaan oo markaas haddana mararka qaad haddana dadkii lagu ceeliyo ay cod afti u qaadaan waxaa iiga soo baxday markaan fiirfiiriye barnaamijkan hadda socdo isagana in la rabo 4.5 in xeer laga dhigo oo haddaan 30 sano heshiis la-aan aan dhabarka ku sidan inta dadku kala maqan yahay wixii xeeroo la sameeyo mar walba wuxuu kugu noqonayaa culays ku saaran waxaad ogtihiin ilaa hadda waxaa culaysa naga haystaan xeerarkii la sameeyey 62 iyo 63 ee xaaladii jirtay lagu sameeyey ee dalka oo centralized la sameeyey ayaa weli in badan xeerarkeena maaliyadda xeerarkeen jinsi xeerarkaas asaliig waa maxaa yeelay xeerka ilaa xeer bedela la helo xeerka isma bedelayo waxaan idin sheegayaa xeerkan haddii xeer ahaan loo ansixiyo oo la qaato goorta la bedeli doono nin garan kara ma leh kaas hadduu 30 sano ama 60 sano qaato kan meequu qaadan doonaa iyadoo hadda dadkii hore uu ka duwan yahay marka waxaan u baahannahay iyadana doorashooyinka 2020ka Puntland waxay mar walba ay soo dhaweynaysay inkastoo runtii iyada naftirkeeda eedaas ay qayb ka tahay in nidaamka dastuurka la soo afjaro dalkana nidaam dimuqraadiya oo lagu wada kalsoon yahay la geliyo saldhigiisu yahay federaal ani ma dhahay midnimadu waa muqadas iyo waayadan kelmadda muqadas ilaahay waa kelmad diiniyo malakul quduus yani wax aan muqadas ama jiraan wax kasta oo siyaasadeed waa wax heshiis ah oo u baahan in laga heshiiyo laakiin waxaan u baahannahay inaan ilaalino midnimada iyo federaalka waxaa kaloo u baahannahay wax xeer aan laga wada heshiisin inuu dalkan xeer u noqon waxaan aada uga xumahay in hadda xeerar badan oo boobsiis ay socdaan waxaan runtii u baahan tahay dadka reer Puntland inay hadda wixii ka dambeeya mustaqbalkooda si dhab ah matalaad iyo cod dheer uga qayb galaan oo aan lagu sii dayn xaaladuhu markay abuurmaan Puntland waxaa ka soo baxa dad dana gaar leh